waa ay guulaysatay weliba ayadoo wadata calankeenna buluugga ah ee astaanta u ah qarankeenna Soomaaliya, waxaana ay qaadatay bilad dhan oo ka dhaxaysa waddamada East Africa ee kala ah Soomaaliya, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan iyo weliba Democratic Republic of Congo. Gabadhan aan ka hadlayo waa Natasha oo ah gabar Soomaaliyeed oo caan ka ah aaladda lagu magacaabo TikTok. Haddaba muuqaalkeenna daawadayaal waxaan ku eegi doonnaa waa bilad ceenkee ah biladda ay ku guulaysatay Natasha iyadoona weliba ooynaysa garabkana ku wadata calankeenna Soomaaliga ah ee buluugga ah. Haddii aad tahay muwaadin Soomaaliyeed oo jecel dalkiisa, muuqaalka like saar oo u sheer garee saaxiibadaada. Ku mahadsanid muwaadinka Soomaaliga ahow, kuna soo biir barteenna Facebook ee Ducaysana Media. Kulanti habboon saaxiibayaal, meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan, ku soo dhowaada barteennan Facebook ee Ducaysana Media oo alaaba aan idinkugu soo gudbinno warbixinada xiisaha badan ee markaasi taagan. Haddaba daawadayaal, muuqaalkeennan waxaan ku eegi doonnaa gabadha lagu magacaabo Natasha oo gabar caan ka ah baraha bulshada, khaasatan aaladda lagu magacaabo TikTok, isla mar ahaantaana ku guulaysatay bilad caalami ah iyadoo wadata calankeenna buluugga ah ee Soomaaliga ah. Waa ay guulaysatay weliba ayadoo wadata calankeenna buluugga ah ee astaanta u ah qarankeenna Soomaaliya. Gabadhan lagu magacaabo Natasha waxaana ay kala dhex baxday Mrs TikTok ama gabadhii 2022 ugu wanaagsanayd aaladda lagu magacaabo TikTok uguna shacbiyadda badneyd East Africa waddamada la isku yiraahdo, iyadoona biladan lagu bixiyay gudaha dalka Kenya loo gartay gabadhan Soomaalida ah ee lagu magacaabo Natasha, baraha bulshadana ku isticmaasha Natasha Gobol. Waxaana ay koobkan kala dhex baxday waddamada kala ah Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan iyo Democratic Republic of Congo, iyadoona weliba ku qaaday koobka calanka Soomaaliya iyadoo garabka ku wadata, isla mar ahaantaana meeshii koobka lagu guddoonsiinayay weliba garabku u saarnaa calanka. Gabadhan ayaana waxaa sidoo kale daawadayaal ay la qiirootay, isla mar ahaantaana aad iyo aad ay ugu oysay kadib markii ay hanatay iyadoo muwaadin Soomaaliyeed ah biladan caalamiga ah. Natasha ayaana soo duubtay muuqaaladan daawadayaal aad arkaysaan iyadoo weliba aad u ilmeynaysa. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay, muuqaalka like garee oo ku soo biir baraheenna bulshada ee Ducaysana Media sida aad ula socoto xogaha xiisaha badan ee maalinlaha ah oo aan ku soo baahinno barteennan page Facebook ee Ducaysana Media. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.